habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka Cusmaan Cabdi Xasan ayaan ahay qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin madaxweynaha Kenya ayaa mamnuucay dhammaan safarada imaanaya iyo kuwa ka baxaya Nairobi iyo laba gobol oo kale warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah iyadoo dhimashada viruska corona ay 70,000 ka badan tahay dalalka Spain iyo Talyaaniga tirada hoos ayay u dhacaysaa Gaza oo meel kasta la xiray viruska corona dartiis balse waxa jira walaac ku saabsan haddii habka caafimaadka uu wax ka qaban karo BBC-da xaqiijinta qaybta ah ayaa wax ka qabanaysa talooyinka marin habaabinta ee ku saabsan viruska corona ee internetka lagu wadaago kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka aan ku bilaabano guud ahaan wararka qaaradda Afrika COVID-19 hadda waxa uu ku baahay ku dhawaad qaaradda oo dhan sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee midowga Afrika kiisaska ay waxayna ku dhow yihiin 9,000 tirada ugu badan ee la xaqiijiyay qaaradda waxay wali ka jirtaa wadanka Koonfur Afrika wariye ku sugan Johannesburg ayaan qaybta dambe kula hadli doonaa South Sudan waa dalkii ugu dambeeyay oo kiis laga soo sheegay Ghana oo diiwaan gelisay in ka badan 100 kiis oo corona ah ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin dheeri ah oo wax looga qabanayo safmarkan iyadoo dadka la siiyay biyo bilaash ah 3 bilood ee soo socota ayaa madaxweynaha wadankaasi Nana Akufo-Addo sidoo kale waxa uu ku adkeeyay shirkadaha bixiya adeegyada biyaha iyo korontada inaysan waxba go'in iyadoo qaybo kamid ah Ghana ay toddobaadidii dhawaa ka jirtay biyo yari shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira 50% ayaa la kordhinayaa mushaarkooda madaxweynaha wadanka Malawi iyo dhammaan wasiirada dawladda ayaa mushaarkooda laga dhimay 10% 3 bilood si loo ururiyo lacag wax looga qabanayo safmarka madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu dahfurayay qorshe dhaqaale ee uu dalka leeyahay xarun lagu baaro viruska corona oo dhismaheedu ku socday wuxuuna ku taalay Abidjan magaalada ganacsi ee Ivory Coast ayaa la burburiyay kadib markii dadka deegaanka ay ka cawdeen in xarunta laga dhisay meel dadku ku badan yihiin muuqaalkan waxa uu muujinayaa koox burburinaysa dhismaha iyaga oo dhulka dhigay qalabka dhismaha kadibna dab ayay qabadsiiyeen mas'uul ayaa sheegay in aan marnaba loogu talagelin xarun dadka lagu daaweeyo oo ay kaliya ahayd in wax lagu baaro kiisaska Ivory Coast waxa ay ka badan yihiin 260 dhimashaduna waa 3 dawladda Kenya ayaa soo rogtay bandow dheeri ah haddaba wariyaha BBC-da Cabdinaasir Axmed Bashiir Saxan Saxo ayaa wararkii ugu dambeeyay goor dhaweyd weydiiyay Cusmaanow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay magaalada Nairobi war aad iyo aad maanta loogu dhagtaagayay ayuu madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta oo tabin toos ah kula hadlayay qalabka warbaahinta la iska arko ayuu ku sheegay in tallaabooyin dheeraad oo xagga bandowga la soo rogay 4 degmo oo dalka Kenya ka tirsan oo caasimada Kenya ay kamid tahay kuna jirta caasimada labaad ee Kenya ee Mombasa, Kwale iyo Kilifi la dhamaanba guud ahaan 4taasi degmo wax gaadiid oo ka bixi karaay aysan jirin xagga cirka dhulka iyo badaba ama biyaha sidaasina lagu muddo 21 maalmood ay xaaladaas socon doonto si buu yiri loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus 16 qof oo cusub ayaa ku soo korodhay tiradii hore taasi oo wadarta ka dhigaysa 158 qof oo guud ahaan wadartii hore ah 2 qof ayaa u dambeeyay oo maanta dhintay waxaana jira in dawladda sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin dheeraad ah 2 bilyan oo shilin oo lacagihii laga soo dhiciyay dadkii musuqmaasuqa hore ugu qaatay dawladda howlgalla ay ku soo dhicisay ayaa loo duwayaa sanduuq loogu talagalay la dagaalanka bushiga coronavirus sidoo kale lacagihii dawladda ay ugu talagashay gunooyinka socdaalka dibadda iyo gudahaba ayaa isla sanduuqaasi loo duwayaa madaxweynaha waxa uu baaq gaar u diray beeraleyda dalka oo yiri tabaciini halkiisa ka sii wada si cuntooyinka daruuriga aan dalka looga weyn gaadiidka kaliya ee 4taasi degmo oo waaweyn oo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin oo malaayiin ah gali kara ayaa kan cuntada gaadiidka cuntooyinka qutul daruuriga wada oo kaliya
iyadoo guud ahaan dunida lala tacaalaya fayraska corona inta badan dunida waxaa la soo rogay bandow waxaa lagu soo waramayaa in tallaabooyinka bandowga ay faa'iido keeneen waxaa la xaqiijiyey ilaa iyo 1.3 milyan oo kiis ku dhowaad 70,000 oo qof ayaana u dhimatay laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa la soo wariyey in caabuqa uu hoos u dhacay dalalka Spain iyo Talyaaniga shalay dalka Talyaaniga oo ah wadanka ugu dhimashada badan waxaa la diiwaan geliyey tiradii ugu yareed tan iyo 19 bisha Maarso dalka Spain oo ah wadanka labaad ee ugu dhimashada badan waxaa dhintay 674 qof oo kale laakiin taasi waa dhimashadii ugu yareed muddo toddobaad ah dalka ugu kiisaska badan dunida ilaa iyo iminka waa Mareykanka laakiin xaaladda way ka soo raynaysaa hadda New York oo ah xudunta xanuunka ee Mareykanka waxaa laga soo sheegayaa hoos u dhac ku yimid tirada kiisaska cusub ee dhimashada Mareykanka waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 330,000 oo kiis waa tiradii ugu sarreysay adduunka ku dhowaad 10,000 oo qof ayaana geeriyootay Britanna dawladda waxa ay ku adkaysanaysaa in ra'iisul wasaaraha dalka Boris Johnson uu weli garwadeyn ka yahay dadaalada lagula dagaalamaya fayraska corona walow isaga laf ahaantiisaba xanuunka dartii cisbitaal loo jiifiyey ku dhowaad 50,000 oo kiis ayaa Britain laga xaqiijiyey Mawlid Xaaji Cabdi oo wararkii ugu dambeeyay coronavirus la socday ayaa qadka Skype-ka toos ugu jira Mawlid maxaa u dambeeyay soo gelin ka hor waxaa lagu dhawaaqay in dad gaaraya 439 qof ay dalkan UK 24 saac la soo dhaafay ay ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19 waxaa kaloo jirta in tirada dhimashaduna ay gaartay guud ahaan marka la isku daro 5,393 laakiin marka dhinaca kala fiiriso rajo ayay noqon kartaa waxaa jirta in labadii maalmood ugu dambeysay ay tirada dhimashadu hoos u socotay shir jaraa'id gordhaweyta lagu qabtay xafiiska Downing Street ra'iisul wasaaraha oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab iyo laba sarkaal dhinaca caafimaadka waxay sheegeen in ay shaqaynayso wax uun ka mid ah xayiraadii dadka la saaray laakiin waxay yiraahdeen weli taasi ma dhowa oo waxa dhici karta in ay tahay isbeddelkan yarka ee kooban maalmaha dhamaadka toddobaadka oo sabtida iyo axadda wadankan inta badan dadku aanay banaanka u bixin laakiin si guud markaad u fiiriso waxa la leeyahay dadkii cisbitaalada tegay way yaraadeen oo 3,802 ayaa la xaqiijiyey inay gaareen cisbitaalka saacadihii la soo dhaafay waa tahay Mawlid dadka Soomaalida dhimashada iyo xaaladooda ilaa hadda maxaad war ka haysaa runtii dhimashada way kordhaysaa Cismaan waad la socotaa markay dhimato 500 oo qof magaalada London oo kale dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool saacadii ugu dambeeyay BBC waxay ogaanaysay in 24 saac la soo dhaafay ay jireen ilaa iyo 5 qof oo Soomaaliya inay ku dhinteen magaalada London qof kamid wuxuu ahaa bas darawal bas ayuu ahaa oo bas ayuu wadayay waqooyiga magaalada London gaar ahaan degmada la yiraahdo Hackney oo jiraadku ayaa ka waramayay nin la yiraahdo Nasir waxa markaas jirta in sidoo kale ay jiraan dad kale oo cudurka u geeriyooday kuwa kana cisaalada ayay yaalaan laakiin si guud markaad u fiiriso magaalada London ayaa ah meesha ugu badan ee hadda dhimashada iyo ay ka jirto cudurka dadka u haleelay dad badan oo Soomaaliyeed ku nool yihiin waan gartay Mawlid adoo soo koobaya ra'iisul wasaaraha isbitaalka ayaa la dhigay marka nooga waran xaaladiisa iyo sida haddii xaalka si bedelo si wadanka u sii maamulaya maxaa dhacaya tan ugu horeysa Cismaan haddaan ku hormaro xaaladiisa saacadii ugu dambeeyay barta Twitterka ayuu qudhiisaba ku soo qorayay inuu wanaagsan yahay caafimaadkiisa isla markaasna xiriiro kala duwan oo la sameeynaya mas'uuliyiinta xafiiskiisa wuxuu kale u mahad celiyay hay'adda caafimaadka NHS oo imika caafimaadkiisa gacanta ku haysa wuxuu sheegay in dhakhtarkiisu uu kula taliyay in markaasi la sameeyo BBC waxay ogtahay in lagu sameeyay markaasi oxygen lagu xiray isla markaasna lagu sameynayo caafimaadkiisa laga taxadirayo tanna waxa la sheegay inay tahay arrimo la tacaalay ka hortag haddii dhibaato ay imaan karto oo kale laakiin ilaa hadda waxa la sheegay in caafimaadkiisa uu sugan yahay dhinaca kale su'aashaada haddii aan ka jawaabo oo ku saabsan yaa hawshiisa wadaya ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaraha isaga ayaa maamulaya dawladda haddii xaaladdu isbedesho laakiin wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab ayaa la wareegaya hawlaha dawladda laakiin waxaa si oo dhan waxa ka horeeya in xaaladiisu ay liidato laakiin ilaa iyo hadda isaga ayaa hawsha wada hawshana maamulaya waxaana la sheegay in uu markaasi si weyn ula socdo xiriir fiican la sameynayo saraakiisha xagga caafimaadka aad baad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi wariyaha BBC Somali TV ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeyay ee corona ee wadankan iyo xogtii ugu dambeysay nasiinayay bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa
qiimaha saliidda ayaa sabaynayay kadib markii dib loo dhigay wadahadallo ujeedkeedu ahaa in lagu soo celiyo suuqa deganaanshihiisa qiimaha saliidda cayriin ayaa hoos u dhacay 12% kadibna waa uu soo laabtay labada dal ee ugu saliid soo saarka badan waa Sacuudiga iyo Ruushka ayaa midba kan kale ku eedeeyay burburka heshiiskii hore ee lagu xakameynayay wax soo saarka wadahadallada maanta la filayay ayaan dhacayn ilaa Khamiista madaxweynaha waddanka Brazil Jair Bolsonaro ayaa ka qayb galay maalin soon iyo allabari ah oo ay ku baaqeen hogaamiyaasha diinta si fayraska corona looga badbaado Mr. Bolsonaro ayaa lagu dhaliilay sidii uu maareeyay mushkiladda fayraska isaga oo dadka kula taliyay in ay iska dhagatiraan xirnaashaha ay soo rogeen madaxda gobolka in ka badan 450 ruux ayaa Brazil fayraska ugu dhimatay waa tirada ugu badan Latin America saynisyahanada ay u suura gashay markii ugu horeysay in ay helaan da'da kalluunka dunida ugu weyn taasina waxay keenay tijaabooyinka atomic bombka intii uu socday dagaalkii qabooba hadda waxaan ogaanay in nibiriga uu noolaan karo ku dhawaad 100 sano cilmi-baarayaasha ayaa adeegsaday nooc ka mid ah kaarboon soo baxay intii tijaabada bombka ay socotay 90maadkii 50maadkii iyo 60maadkii mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socda qaybta xaqiijinta BBC waxa ay qabanaysaa tallaabooyin marin habaabinta wax looga qabanayo ee ku saabsan fayraska corona ee internetka lagu baahiyo wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamkan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn madaxweynaha Kenya ayaa mamnuucay dhammaan safarada imaanaya iyo kuwa ka baxaya Nairobi iyo 2 gobol oo kale iyadoo dhimashada fayraska corona ay 70,000 ka badan tahay dalalka Spain iyo Talyaaniga tirada hoos ayay u sii dhacaysaa dadka u dhintay fayraska corona ee waddanka Koonfur Afrika waxa ay yihiin kuwa ugu badan waana waxay gaarsiisan yihiin 1,600 qaaradda Afrika haddaba sidii aan horey idinkugu sheegay waxa qadka Skype-ka ee magaalada Johannesburg ku jira Cabdixakiin Ibrahim Cawaale oo ah wariye madax bannaan Cabdixakiin xaaladda nooga waran Cusmaan Cabdi Xasan dalkani Koonfur Afrika sida hore u sheegtay waxa uu hogaaminayaa kiisaska la helay qaaradda Afrika wuxuuna gaarayaa 1,655 kiis iyadoo habeennimadii xalay dawladda Koonfur Afrika ay ku dhawaaqday kaliya maalnimadii shalay in la helay 70 qof oo cusub halka dhimashadu ay marayso 11 qof 95 qof ayaa ka bogsootay ay tiri dawladda Koonfur Afrika dadka isbaaray ayaa waxa ay gaarayaan 55,000 oo qof ilaa iyo haatan dawladda ma aysan cadeynin in laga helay cudurrada dhamaantood iyo in kale waxaana lagu maqan yahay baaritaano Cusmaanow waxaa kaloo jira in dawladda Koonfur Afrika ay ku dhawaaqday in guryaha dadka loogu geli doono si loo baaro oo fayraska halkaas looga ogaado sidoo kale waxaa jirta in maaragta dadka South Africaanka xaafadaha ay degan yihiin ay u badan yihiin ay tahay xaafado isku rarana dadka madowga kuwaasi oo noloshu ay ku adag tahay waxaan laga baqayaa
sida xaafadda alexandra oo kale oo 2 kiis laga helay waxaa laga baqayaa in ay ku faafaan dhulkaasi garigo-anka oo dowladda South Africana cabsi fara badan ay ka muujinayso waxaa kaloo jira Cusmaan Cabdi Xasan in maaragta dalkani Koonfur Afrika dadku ay maaragta bandow ku jiraan maalintii 11aad waxaana u harsan 10 cisho oo dowladda Koonfur Afrika 21 cisho ayay wixii soo rogtay bandow waan gartay Cabdi Xakiin Soomaali badanna way ku nooshahay Koonfur Afrika iyo dad badan oo soo galooti ah wadanka ama ganacsi u jooga ama qaxootinimo isaga jooga marka dadkaasi daryeel caynkee ayay helayaan waa midda ugu adag haddii aan ka bilaabo Soomaalida waxaa jira Soomaalida dalkani Koonfur Afrika marka horeba waxay ahaayeen dad ganacsata iyo dad xoogsata ah dadka ugu badan oo dhibaatadan ay saameysay waa dadkii xoogsatada ahay oo guryaha aan ka soo bixi karin qaarkoodna waxay u badan yihiin Cusmaanow dad dhalinyaro ah oo xaasas aan lahayn marka 21 cisho dhibaatada ay keensan karto maaragta dadka dhalinyarada waa la dareemi karaa meelahii Soomaalida lagu yaqaan ama ganacsiga dhibaato fara badan ayaa ka jirta oo maaragta dad waxa arkaysa doonaya inay wax soo iibsadaan ama booliskana ka cabsoonaya sidoo kale waxaan xiriir la sameeyay ganacsatada waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika mid kamid ah oo lagu magacaabo Hashim Cali Daahir waxa uu xaqiijiyay dhibaatada ugu weyn ee haysata inay tahay dadkii wax ka iibsan jiray oo maaragta garab rartada ahaa oo maalintii waxa ay soo iibiyaan dib ugu keeni jiray in ay dhibaato fara badan ay soo wajahday iyaguna ay la tacaalayaan wixii ay caawin karaan inay caawiyaan qaarkood waxa uu sheegayaa in deemo marka horeba lagu lahaa ganacsatada waaweyn ee ku lahayd dhibaatooyinka maaha mid la soo koobi karo balse waxaa sidoo kale laga baqayaa oo Soomaalida iyo dadka ajaanibta ee dalkani haajirnimada ku joogay ay ka baqayaan in ay sii dheeraato oo dawladda ku darto maalmo dheeriya oo bandow ah waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariye madax bannaan Cabdi Xakiin Ibraahim Cawaale oo magaalada Johannesburg ku sugan aad baad u mahadsan tahay Cabdi Xakiin markana marinka Gaza dadku waxa ay wadnaha farta ku hayaan inuu halkaasi ka dilaaco safarka viruska corona 12 kiis ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay meel walbana waa la xiray xitaa goobihii cuntada laga qaybin jiray dadka ayaa la sheegay in ay guryahooda joogaan waxa warbixintii ugu dambeysay noo haya Cabdiraxmaan Bidhaan xayiraadaha iyo bandooyadu waxay caadi ka hayeen Gaza laakiin sababtu ma ahaan jirin safmar dhulkan yar ee Gaza oo ay 2 milyan oo qof ku nool yihiin ayaa imika waxa wadnaha farta lagu hayaa in coronavirus uu ka dilaaco dadka halkan deganna way og yihiin inaanay u babcadhigi karaynin Umushaadiya waxay ku nooshahay xerada qaxoontiga ee Jabaliya waxaana ay sheegtay in tan iyo markii ay maqleen safmarka iyadii qoyskooduba ay guriga ku jireen oo ay baqayeen من يوم ما قالوا كورونا بنامش مش عارفين ايش نعمل ما aynan seexan markii la yiri fayraska corona ayaa jira ma garanayo waxaan sameeyno Gazana ma jirto awood loogu nabad dhigo dhamaantiin gacanta Ilaahay baan ku jirnaa hay-adda caafimaadka ee adduunka ayaa waxay ka digeen howlwadeenadeedu in ay Gaza halis ugu jirto haddii uu cudurkan dilaaco nidaamka caafimaadka ee halkan ayaa waxa dhibaato u geystay 14 sanadood oo go'doomin ku jireen iyo dagaalada ka socda xadka ay la wadaagta Gaza Israa'iil koox iyagu lagu magacaabo dhakhaatiirta banaadnimada ee Israa'iil ayaa waxay ka digeen inay Gaza leedahay 70 sariirood oo xaaladaha degdega ah safmarkan ayaa hadaba waxa uu durtaba galaaftay qaybo kamid ah nolosha aasaasiga ah ee Gaza sida meelaha lagu qaybiyo cuntada qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan qaxoontiga Falastiiniinta UNRWA ayaa iyadu waxay xidhay goobihii cuntada lagu qaybin jiray UNRWA قررت تعليق وليس وقف sukumeel gaar ah ayaan u joojinay xarumaha cuntada lagu qaybin jiray waxaan rabnaa hab cuntada lagu qaybiyo amaan u ah dadka loo geynayo iyo shaqaalaha haddii aynu ku soo laabanno aqalka Umushaadiyana waxay haysataa daqiiqdii yareed ugu dambeysay الناس ما حاش تاكل وفيش شغل لو في شغل dadku waxay cunaan oo ku filan ma haystaan shaqana ma jirto isbuucan waan soo amaahday cuntada cunayno balse laga yaabay inaan soo amaahan kari waayo isbuuca soo socdo dadka halkan ku nool sida Umushaadi ayaa waxa ay yihiin dad iyagu dhibaatooyin badan la soo kulmo ay kamid yihiin dagaalo go'doomin iyo waliba saboolnimo baahsan waxaana imika ugu soo darsoomay oo noloshoodii saameyn ku yeeshay safmarkan dilaacay
haddana wararka ciyaaraha ee caawa maamulaha kooxda McLaren Formula 1 Zak Brown ayaa sheegay in isboortigu uu ku jiro marxalad adag oo la xiriirta mushkiladda fayraska corona. Qorshooyin qarash dhimis ah ayaa looga hadlay kulankii maanta. Naadiyada ayaa loo qaybiyey sida ugu habboon ee loo ilaalin karo isboortiga. Dhammaan tartamada Formula 1 dib ayaa loo dhigay sababo la xiriira safarkan dunida ka socda. Champions League iyo Europa League ayaa laga tagi doonaa haddii xayiraadaha fayraska corona ay sii jiraan ilaa iyo bisha September. Sidaasina waxaa laga soo xigtay madaxweynaha UEFA Alexander Savrin ayaa sidoo kale sheegay in halka laga dheeli lahaa garoomo xiran oo lagu ciyaari lahaa laga doorbidayo in la wada dhaafo ciyaaraha oo dhan. Tartamada Champions League iyo Europa League ayaa hadda la joojiyey ilaa iyo wargelin dambe. difaaca Manchester City Kyle Walker ayaa wajahaya baaris ay naadiga sameynayaan kadib markii la sheegay inuu jabiyey qaynuunada xayiraadda ee isaga oo qabtay xaflad ay qayb ka ahaayeen laba qof oo jirkooda ka ganacsada. Raaligelin ayuuna ka bixiyey in uu isgo'doomintii inuu guri ku jira ahayd uu jabiyey isaga oo dadka kula taliyey in ay guryahooda joogaan inta uu fayraska jiro. Naadiga Manchester City-na waxa ay sheegeen in baaris la sameynayo oo la ogaanayo. in la cabo liinta qaniyada kaneecada iyo in dhiig lagu deeqo iyo waxyaabo kale oo badan xaqiiq hubin ay BBC-da samaysay si loo xalliyo khuraafaad badan oo ku saabsan fayraska corona kuwaasi oo la soo geliyo internetka oo baraha bulshada aad loogu wadaago sida WhatsApp-ka iyo xitaa mararka qaar fariimaha message dhambaalada la isugu diro Facebook iyo meelo badan ayaa waxaa ku jira fariimo aan xaqiiq loo hayn ama caddayn saynis kuwaasi oo dadka ay u diraan saaxiibadood. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa soo jeedinaya. dhammaanteen muddo dheer ayaynu ku jiri doonaa arrintan waxaana muhiim ah in aynu kala saarno xaqiiqda iyo khuraafaadka. waa kuwan khuraafaad badan oo ay tahay inaad iska jirtid. khuraafaadka koowaad cabitaanka liintu waxa uu ka ilaalinayaa COVID-19. waxaa jira hadallo badan oo ku saabsan waxyaabaha ay tahay in aad cuntid ama aad u cabaysid fayraska corona. qiyaaliga ah cabitaanka liintuna ma aha mid ku bogsiinayo. waxa ay ka bilaabatay baraha bulshada in la soo dhigo qoraallo xambaarsan talooyin beena oo ka yimid saynisyahano shiinaysa. waa wax iska cad in cabitaanka liintu xaqiiqdii aanu ahayn wax ku xun adiga. dhabtii dhammaan miraha iyo qudaartu waa muhiim marka inteena badan aynu guryaha joogno. waxay gacan ka geysanayaan caafimaadka laakiin kaama celin karaan in fayraskan oo kale uu kugu dhaco. khuraafaadka labaad qaniyada kaneecadu waxa ay kugu ridi kartaa fayraska. dhammaanteen waynu ognahay in cudurro kale aynu ka qaadi karno qaniyada kaneecada laakiin caddayn looma hayo. mar labaad xusuuso kani waa fayrus neefsashada ku faafa gaar ahaana marka qof uu qufaco ama uu hindhiso. sida ugu wanaagsan ee aad ugu hortegi kartaana waxa ay tahay inaad iska ilaaliso inaad si dhow ula xiriirto qof kale oo xanuunkaasi qaba iyo inaad joogtayso dhaqista gacmahaaga. khuraafaadka saddexaad dhiig aad ku deeqdid in aad ku heli kartid baaritaan bilaash ah oo fayraska ah. dadka qaar ayaa waxa ay rajaynayaan inay helaan baaritaan bilaash ah oo fayraska corona ah haddii ay dhiig ku deeqaan. laakiin waxaa jira aaminaad been ah oo joogto ah oo baraha bulshada la soo dhigay. waa iska caddahay in aan laga baaraynin fayraska corona haddii aad dhiig bixinaysid. waxa ugu dambeeya ee ay shaqaalaha bangiyada dhiigu doonayaan waa inaadan u tegin adigoo xanuunsanaya. sidaasi darteed talada ugu wanaagsani haatan waa ilaali caafimaadkaaga inta saynisyahanadu ay ka helayaan dawo. ugu dambeyntiina caawa waxaan idinkaga tegayaa kalkaaliyaal ka shaqeeya isbitaalku meel gaara ku yaala Talyaaniga ayaa bilaabay olole ay ku dalbanayaan in buugaag ay ugu deeqaan bukaanadii qabay fayraska corona ee halkaasi lagu daaweeyey. natiijada ayaa noqotay library ka buuxsameen buugaag iyo wargeysyo ay dadkaasi ku deeqeen iyo muraayadaha la xirtay wax akhriska loogu talagalay. xusuusnaa wararkii ugu dambeeyey ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka. nabadgelyo.